qaybtan saddexaad ee qormadani basaasinta Soomaalida waxaanu kaga hadlaynaa basaaskii Itoobiyaanka ahaa ee muddada dheer la noolaa dadka Soomaaliyeed una shaqayn jiray safiirka Itoobiya. waxay qaybtii hore inoo joogtay iyadoo sirdoonka Soomaalidu ku maqan yihiin dabagalkiisa raggii daba joogayna uu ku jiray Carbay oo ahaa sirdoon Soomaali ah oo wardi ahaan u joogay guriga safiirka Ruushka. Carbay markuu xasuustaa habeen ay jirtay xaflad oo darawalka laga shaksnaa uu safiirka Itoobiya keenay aqalka safiirka Ruushka intii safiirada kala duwan iyo martida kale ee Soomaalida ay ku jirtay ay ku sugnaayeen xafladda ayaa Carbay waxaa suurta gashay inuu la kulmo darawalkii oo magaciisu ahaa Xasaney. waxay isla soo qaadeen dilkii Salaad Gabayre iyo saraakiisha kale ee lala toogtay, waxaana hadalkoodu uu ahaa hadal hoose. wuxuuna Xasaney ku sheegay in sababta loo dilay Salaad Gabayre ay ugu weyn tahay sida uu yiri shaki looga qabay inuu lug ku lahaa sirdoonka Ruushka ee KGB-da. wuxuuna sheegay in la helay xitaa magacii afgaradka ee uu lahaa, taas oo Carbay fajiciso ku noqotay. waxay ahayd xog muhiim ah oo aan aad loo ogeyn ilaa sanadii 2005 oo nin taariikhyahan ah oo la yiraahdo Christopher Andrew uu daabacay buug uu ku sheegay Salaad Gabayre ay tababareen KGB-da oo afgaradkiisuna uu ahaa operator. wuxuuna Carbay ogaaday in Xasaney waxyaabo kale ogaa laakiin ma haynin wax xaqiiqo ah. marar kale way kulmeen, waxaase xilli ka mid ah xilliyada uu Xasaney haddana soo hadal qaaday sababta xarunta shirkadda diyaaradaha ee Ruushka Aeroflot ee degmada Shangani ugu taalay kasoo horjeedka safaaradda Mareykanka oo iyana isla halkaas ku taalay hal jidna uu dhaxeeyay. Xasaney wuxuu sheegay in shirkadda diyaaradaha ee Ruushka sababta ay xafiiskooda halka uga dhigeen ay ahayd iyagoo basaasaya codadka sirta iyo siraha looga dhex hadlo gudaha safaaradda Mareykanka oo ay ku duubayeen qalab gaar ah, iyagoo markaa xafiiskooda basaasnimo huunaya magaca xafiis shirkad diyaaradeed ay leedahay. Carbay wuxuu la yaabay arrimo kale oo uu Xasaney uga sheekeeyay oo ay ku jirtay in derbiga safaaradda Mareykanka uu ku dahaarnaa rinji gaar ah oo wata dahaar aanu codku ka dusi karin si loo ilaaliyo waxa ay safaaradda gudaheeda ka socda ama looga hadlayo, maadaama uu ka soo horjeeday xafiis ay leeyihiin Ruushka oo ah kii shirkadda diyaaradaha Aeroflot-ka. markasta wax cajiib ah ayuu ka sheekeyn jiray, wuxuuna u muuqday nin qabiira isla markaana leh dareen aan caadi ahayn. marar ayuuna Carbay iyo wardiyaasha kale kula talin jiray in aanay aaminin masaakiinta ku soo leexata dhammaantood, isagoo ka digay inay jireen qaar la soo diray ha ahaadeen sirdoonka Soomaalida iyo sirdoonno kaleba. Xasaney wuxuu ka warrami jiray dhaqamada reer xeebeedka ee Banaadir siiba deegaanka uu deganaa oo uu aad u jeclaa. dadkii caanka ahaa ee deegaankaas soo maray, madax, ciyaartooy, madax dhaqameed, haween, saraakiil boolis iyo kuwa ciidan, inta ay doonaan baha ahaatee oo uu markaas aad u yaqaanay. sida uu u ahaa darawal caan ah oo xirfad yaqaan ah in lagu soo xusho ayuu marar badan ka hadli jiray. wuxuuna sheegi jiray inuu soo mareen diblomaasiyiin badan oo uu la soo shaqeeyay, wuxuuna yaqaanay luqadda Talyaaniga iyo Carabiga. ma jeclayn inuu sheegto in uu yaqaano luqadda Amxaariga ama Ingiriiska, taas oo isaga fogeynaya tuhunno badan oo loo qaadi lahaa. waxa uu aqoon fiican u lahaa af Soomaaliga iyo dhaqamada Soomaalida siiba luqadda Mayga, isagoo tilmaami jiray in asal ahaan uu yahay nin ka yimid dhulka digilka ee Buurhaybe. Carbay marna waa ka degi weyday Xasaney in lagu sheego nin wax kale ah ama lagu tilmaamo nin wax jilaya, waxayna qaadatay waqti badan in uu ka fikiro sidii mar uun looga dabategi lahaa. qaybta afraad ayaad naga sugi doontaan. haatana waxaanu intaa ku idlaynaynaa qaybtii saddexaad waa inoo qaybta afraad. صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا